اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا واهدنا به سبل السلام وأخرجنا به من الظلمات إلى النور واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم ارفع لنا به الدرجات وأنقذنا به من الدركات وكفر عنا به السيئات اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الحسنى والزيادة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الكفر والفقر والشقاق والنفاق والرياء والسمعة ونعوذ بك maanta abwaan maxamed ibraahim warsame oo loo garan og yahay abwaan hadraawi oo ku geeriyooday shalay magaalada Hargeysa abwaanka waxaan uga tacseenaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto eheladiisii qoyskiisii iyo asxaabtiisii gaarka ahayd wixii ka nool si gaar ah uga tacseenaynaa Soomaaliland si gaar ah uga tacseenaynaa annagoo fuuta ka timid deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waan kana soo qayb galnay janaasada ama aaska abwaanka aad iyo aad baan uga tacseenaynaa geeridu waxa qof waliba waa dhiman waan wada ognahay dhamaanteen laakiin maanta tiiraanyada iyo tiirka weyn ee ka baxay murtida iyo suugaanta Soomaaliyeed inaan si gaar ah uga tacseynaan uga soo qayb galan dariiqa inta la soo marnay eheladiisina si gaar ah samiri iman jamiil Allah ka siiyo dhammaanteen ummadda Soomaaliyeedna Allah samir jamiil ah naga siiyo bedelkiisa oo khayr qabana Allah ina siiyaan Ilaahay ka baryana isagana waxaan erga uga nahay inuu Ilaahay jannooyinkiisa ugu deeqo sida ay mas'uuliyiinta naga soo horeeyay sheegeen adoon wanaagsan buu ahaa hadaladiisa waxa kamid ah waxyaabaha aad ka wanacba waxyaabaha siyaasadda iyo wadamada kharibaya inuu dhex gelino aad uga digtoonaa jiray bal ee isku soo dhaweyn jiray oo dhinaca wanaaga iyo dadku si isugu iimaan lahaayeen oo aad ugu dadaali jiray marka guud ahaan waxaan leenahay adoonkaasi abwaan hadraawi naxariista janna Allah ka waraabiyo dhammaanteena samiriyan Allah naga siiyo aamin 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 برين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan tacsi uga dirahaynaa annagoo ku hadlaynaa magaca iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida
tacsidii xooga badnayd ee ku timid ehelkii uu ka baxay iyo qaraabadii uu ka baxay iyo guud ahaan reer Somaliland iyo inta afka Soomaaliya ku hadashaba meel ay joogtaba abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed maxamed warsame hadraawi lagu garan jiray ilaahay naxariista jannaha siiyaan leenahay fariimo aad u culus oo tacsiya ayaa waxaanu halkan uga jeedinaynaa eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaantood meel ay joogaanba geerida maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaanu ilaahay ka baryaynaa saacadan ayay taagan yihiin mugoorta malaa'igtu weydiin lahayd su'aashe ilaahay qowlka thaabidka Allah waafajiyo qowlka toosan Allah waafajiyo ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay jannatu firdaws albaabadeeda ha u furo ilaahay idamkiisa jannada Allah geeyo inta kadib waxaan halkan ka sheegayaa shakhsiyaadka Soomaali aan aniga u saaxiibsanahay mid kamid u ahaa aqoon badan oo dheer aan u leeyahay lama sifayn karo wuxuu ahaa waxaan islaahay wax badan halkan in laga sheego looma baahna maxaa yeelay intuu noolaa maxamed ibraahim warsame ayuu warkiisu sheeganaa waxaan u daliilay dadka maanta ka soo qayb galay askiisa u daliilay inuu sida ahaa wuxuu ahaa dadku waxay u bartaan in badan inuu ahaa abwaan hal abuur badan wuxuu kaga xeel dheeraa wadaniyada iyo ummad jacayl isagoo wax walba ka jeclaa ilaahay wixii ka dambeeyaba ka jeclaa ummadda Soomaaliyeed iyo wadankoodaba abwaan maxamed ibraahim warsame wuxuu intaas oo dhan kaga sii daraa